Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada janaalka Ibra Solution. Insha Allah waxaa sharxi doonaa imtixaankii ugu dambeeyay ee fasalka 8aad gaar ahaan maadada tarbiyada sanad dugsiyeedka 2023-2024. Imtixaanka qaybta koobaad waa gabageli waxaana saarnay 80 darajo. Su'aasha koobaad haddii aan guda galno waxay noqonaysaa almaa'u alqadaqu fi qawlihi ta'ala maa'an qadaqan huwa almaa' waxaa loola jeedaa biyahaasi. Ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa waa xarafka ba oo ah alkathiir. Su'aasha labaad min xuruufi al-idhaar waxaa ka mid ah ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka jiin oo ah alcaynu walghaynu. Su'aasha saddexaad kelimatu yarmaluuna tashmilu waxay kulminaysaa cala alxuruufi xarfaha. Ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka deel oo ah al-idghaam. xuruuf al-idghaam ay kulmineen. Su'aasha afraad qaala Allahu ta'ala wa annahu kaana safiihunaa cala Allahi shadadan. Al-maqsuudu safiihunaa ereyga safiihunaa waxaa loola jeedaa ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah al-jaahil. Su'aasha kale ee xigta ee shanaad taajirun yabiicu wayashtaraa nin ganacsada ayaa wax buu gadaa waxna wuu soo gadanayay. wa asbaxa maaluhu fi nihaayati al-caam sanadka dabaadiisa maalkiisa wuxuu noqday lacag gaaraysa $8,000. yadfacu zakaat zakada wuxuu ka dhiibayaa yadfacu min zakaat zakada xaggeeda wuxuu ka dhiibayaa zakaan wuxuu dhiibay ninkaas $8,000 haysta. Ardayga waxaa sameynayaa zakadiisa waxay noqonaysaa $8,000 waxaa u qaybinaysaa 10 800 waxaa usii qaybinaysaa 4 wuxuu zakaan u dhiibayaa $200. waa xarafka ba $200 oo wuxuu u dhiibayaa zaka ahaan. rubul cushurka intaasay noqonaya. Su'aasha shanaad yaqsidu bisilati raxim silatu raxim waxaa loola jeedaa arday xarafka jawaabta waxay noqonaysaa xarafka ja. Sidoo kale su'aasha xigta oo toddobaad kelimatu yan'awna kelimadaas misaalul idhaar waxay tusaale u tahay idhaar min jawaabta saxda waxay noqonaysaa kelimatin waa hal kelimo oo ah xarafka alif. sidoo kale su'aasha sideedaad جاءت النصوص الشرعية على أن طعن الصحابة nusuusta sharciga waxaa ku yimid in saxaabada wax laga sheego inay tahay. Jawaab sax waxay noqonaysaa ardayga xarafka ja oo ah xaraam. Su'aasha xigta qaala Allahu ta'ala wa kaana amrullahi qadaran maqduuran. يستخرج من هذه الآية ركن من أركان آيادii hadda aan soo aqrinay waxaa lagala soo raaxbaxayaa rugna ka mid ah arkaanta. Jawaabtu waxay noqonaysaa ba oo ah iimaan arkaanul iimaan. Su'aasha xigta al-istimraar fi dariiqi Illaahi al-mustaqiim in wadada Ilaahay oo toosneed waxay ahaatee la joogteeyo yucrafu waxaa lagu yaqaanaa. Ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka ja waa athabaat. Su'aasha xigta al-mihnatu shaaqa fi ghazwati al-ahzaab kaanat shaqadii dhibka badnayd ee duulaanka axzaab waxay ahayd. Ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah xafrul khandaq godka in la qodo. macna al-xaj luqatan ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka alif ee ah al-qasd.
waxaa soo gudbin page labaad. Su'aasha koowaad ahna su'aasha 13aad waxay leedahay ولد الإمام الشافعي وعاش في عصر. jawaabta saxda waxay noqonaysaa ardayey imaam shaafici wuxuu dhashtay uuna soo barbaaray sanadkii waa al-cabaasi, sanadka cabaasiyiinta. su-aasha xigta arraawi fi lxadiis almu'min hawaahu alqur'aan wasunna. xadiiskaas waxaa wariyey arday. jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka alif ee ah cabdullaahi bin cumar bin caas. su-aasha xigta qaala tacaala innaa caradna al-amaanata cala asamaawaati waalardi waljibaala faabayna an yaxmilnaaha ilaa aayadda dhammaadkeeda. aayaddaas waxaa la dhahay maxallul istishhaad haadihi al-aaya calaa darajati ana al-amaana. waxaa loo daliishadaa amaanadu maxalkeeda inuu yahay. jawaabta saxda waxay noqonaysaa arday xarafka ba ee ah cadiim. su-aasha xigta arday faqad warada fi lqur'aan qisas alambiyaa. qur'aanka waxaa lagu soo arooriyay qisooyinkii ambiyada. alhadafu alasaasiy minhaa. ujeedka laga lahaa waxay ahayd huwa an takuuna linnaasi si ay dadka ugu noqoto. jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka da ee ah cibro qaadasho. su-aasha 13aad adaa'u lcummaal camalahu biitqaani wujuudatin caaliya huwa al-amaana. qofka in markaas shaqaalaha shaqadiisa uu si wanaagsan u qabto waxay noqonaysaa amaanada. jawaabta arday waxay noqonaysaa alif jawaabta waxay noqonaysaa xarafka alif oo ah alcamal. imaam muslim kaana yacmalu. imaam muslim wuxuu ku shaqayn jiray arday. jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ba ee ah atijaara. su-aasha 14aad taqwiyat albaatil wa tadciifu alxaq waathawaab wannusra al-aqaaribuka bixaqin wa bigayri xaq. in markaasi baatilka la difaaco oo la xoojiyo oo xaqa iyo sidii markaasi wanaagsaneydna aan laysugu gargaarin oo qaraabadana loogu gargaaro xaq iyo xaq daraba. arday waxay noqonaysaa jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka alif oo ah alcasabiya waa qabyaalad. su-aasha xigta ee 20aad aladiina xaasaruu rasuulallahi fii maka hum dadkii markaasi oo ku cunaqabateeyey nebiga magaalada maka waxay ahaayeen. xarafka ba waa kufaar quraysh. min suwar almusaamaxa fi lxadiis almusaamaxa fi lmucaamalaat waxaa ka mid ah arday. jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka alif ee ah indaaru lmucsir qofka markaasi oo culus in la sugo. qaala sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu axadukum xataa yakuuna hawaahu taabican limaa ji'tu bih. mima nastafiidu hada alxadiis. xadiiskan waxaa ka faa'iideynaa ana almaxabata inay tahay camalun. jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah qalbi. qowluhu tacaalaa famshuu fii manaakibihaa wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur. haadihi alaaya aayaddan otana waxay dadka ku dhiirigelinaysaa. jawaabta saxda waxay noqonaysaa arday xarafka ba oo ah dalabu risqi qofka in markaasi uu shaqaysto risqigiisa u raadiyo. su-aasha 24aad ee beejka 3aad qaala allahu tacaalaa wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu. aayadda iyada tadullu waxay caddeyn u tahay haadihi alaaya aayaddan calaa
أن التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة النبي إن لقبصته ألف واي إنها واجب واي. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر وحاكمته maalinta qiyaamaha in la rumeeyo faa'iidooyinka laga helayo waxaa ka mid waa xarafka da oo ah taqwiim suluk aljamcu bayna alkhalaa'iq fi makaanin waaxid yusamaa dadka in hal meel lagu kulmiyo waxaa lagu magacaabaa waa xarafka ja oo ah alxashru. samiicun basiirun haataani labadan alkalimataani ee kelmadaha ah tadullaan waxay caddeyn u yihiin calaa samiicun basiir waay waxay caddeyn u yihiin miisaal u yihiin jawaabta saxda waxay noqonaysaa ardayey al akhlaab waa gadin. qaala tacaalaa faqultu astaqfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaaran yursilu samaa calaykum midraaran. aayadan oo tan ah waxaan kala soo raacbaxaynaa calaa ana alistigfaar inay tahay sababun linuzuul waa xarafka da oo ah madar. su-aasha xigta ishtahara calaa su-aasha xigta ishtahara caliyun cali wuxuu caan ku ahaa radiallahu canhu allaha ka raali dhaqdee waa cali bin abi daalib cinda almuslimiin marka la joogo jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah alfasaaxa. qaala tacaalaa am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yu'dan bihi illah. aayadan oo tan ah waxay dabaqaysaa jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka da oo ah ashirkul akbar waaye in markaasi sharciga ilaahay in lagu dhaqmo qof kale wax jidaya ma jira. su-aasha 1 iraadatul khayr lilmansuux yacrifu wanaagga in lala doono qofka waxaa loo sheegayo waxaa lagu yaqaanaa waa xarafka ba oo ah annasiixa waana waay. qaala allahu tacaalaa summa liyufiiduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waliyadawafuu bilbeyti alcatiiq. tadullu haadihi alaaya aayadan oo tan ah waxay caddeyn u tahay waa xarafka da oo ah tawaaful ifaada waa tawaafka waajibka ah. 23aad su-aasha 23aad waxaan soo gaarnay qowluhu tacaalaa taslaa naaran xaamiya. هذه الآية يدبغ على jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah tanwiin. su-aasha xigta min wasaa'ili nashri dacwa waxaa ka mid ah alislaam wadiiqooyinka la maro waxaa ka mid ah waa xarafka ja ka mid ah oo ah alkhitaaba. su-aasha xigta ee 35aad shuruudu wujuubi siyaam waxaa ka mid ah arday jawaabta waxay noqonaysaa xarafka da oo ah albuluuq qaangaar. التخلي على غير أعمال الحج إن laga soo baxo acmaalada xajka waxaan ahayn والدخول في مناسك الحج camalka xajkana in la guda galo camalka xajkana in la guda galo camalada xajka in laga soo baxo camalka xajkana in la guda galo
ardey waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah al-ixraam. Su'aasha xigta al-ashharu al-xurum bilaa xurmada leh arbacatun waa afar minhaa waxaa ka mid ardey jawaabta sax waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah rajab. min ahdaaf istiqlaaf al-insaan fil ardi ahdaafta oo bini'aadamku qayb looga yeelo dhulka waxay tahay ardey jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka alif ee ah al-camaara. su'aasha xigta dariiqun yamurru canhu al-muwahhiduuna walaa yatajaawazu canhu al-kuffaar. waddo oo muwahhidiinta marayaan gaalada aysan mari karin waxaa lagu magacaabaa xarafka ba waa as-siraat. su'aasha afartanaad yaquulu cabduraxmaan bin cawf radiyallahu canhu yaa jabbadal maal asuunu bihi ardii wa ardii bihi rabbii yadullu calaa hada al-xadiis. xadiiskan oo kan wuxuu caddeyn u yahay oo xarafka ja ee ah al-xalaal. waxaa isla soo gaarnay ardayay qaybta labaad ahna qaybtii ugu dambeysay imtixaanka. القسم الثاني املأ الفراغات الآتية بما يناسبها wixii ku habboon ku buuxi. احرص ku dadaal على ما ينفعك wixii ku anfaca واستعن بالله إلهي kaalmeydiiso ولا تعجزن عاجز. يشجع هذا الحديث حديث كان wuxuu dadku u dhiirigelinayaa على العمل waa shaqada. su'aasha labaad عذاب لا ينقطع إلى قيام الساعة أنجين إلى قيام الساعة معها هو عذاب الكفار والمنافقين. marka meesha waxaa ka maqan ardayda cadaabun daa'imun waa macnaa cadaab joogto ah daa'imun aa ka maqan. nasha imaam shaafici wuxuu kusoo barbaaray min meesha waxaa ka maqan arday usra aa ka maqan min usratin faqiira كانت تعيش في فلسطين. مناصرة القريب ومساعدته في الدفاع عن الحقوق من حقوق قفك أو مركز قريبك لو gargaaro la difaaco عن حقوق waxay ka mid tahay meesha waxaa ka maqan arday qaraaba walaysat casabiya qabyaalad maaha. رجل تاجر عنده مبلغ قدره nin ayaa wuxuu u gaaraa ganacsada ah wuxuu helay $700 aan dhahay مقدار زكاة واجب إخراجه هو wuxuu noqonayaa arday wadiiqadii haday amarna oo kale ayaa maraysaa waxaa sameynaysaa wuxuu haystaa ninka 7,000 waxay u qaybinaysaa 10 u qaybi waa 700 waxaa usii qaybinaysaa 4 usii qaybinaya cusharka waa 175. إخراجه waxay noqonaya marka $175 noqonaya. su'aasha xigta إذا أعد الغنم للبيع ariga hadii loo diyaariyo gadid يكون نصاب الزكاة فيه wuxuu noqonayaa مثل نصاب wuxuu noqonayaa التجارة wuxuu noqonayaa nisaabka oo curuud tijaara oo noqonaa nisaabo curuud tijaara waa arday meesha ka maqan curuud tijaara ka maqan. هاجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد meesha waxaa ka maqan arday hijratu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam bi3 أيام hijra aa ka maqan. su'aasha 48aad waxaa waaye al-faqiiru faqiir waxaa laaman laa maala lahu walaa kasba yaqacu mawqican min xaajati. su'aasha xigta curuudu tijaara
هي الأشياء المعددة للبيع أرday meesha waxaa ka maqan والشراء ka maqan بس. لا صيام على المريض الذي لا يقدر الصوم ولا يرجى بره صون laga maro qofka markaas awoodin reesashadiisa aan la rajeynin وتجب عليه waxaa ka waajibaysa laakiin aan fidya ardayda casharkan halkaas ayuu ka egyahay billahi tawfiiq.